السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين السلامي ولا ليقى قالقة إكو حران شرالك ولا شين وحيان بدن إن أنا جواب تقانا بوا ولا شين وحيان بدن إن وحكلو إلى فريسو إن قعنتي بدح وحافريسو ولا شيء فردوس كاش ما على مسكين مهن إن أصحابتي إصبر برشة وناكسن هرتا أنا عاود جنال كان إن ووجدين فيس كان فيس عصبواي عاو waxa marti ku ahay walaashay ubaxayaan badan marna saaxiibtay everything marka caaw waxaan ka hadlaynaa wax dareenkeena aad iyo aad yani u soo jiitay oo macnaha na dhibo mar walbo gabdhaheena Soomaaliyeed dhibka ay maraan iyo marxaladaha ay ku nool yihiin waa sax walaalahayga qaaliga ah walaashin Firdowso maanta walaalahay waxaan idin haynaa murugo ku saabsan gabdhaheena Soomaaliyeed dhammaan ma ahan intii nasiibkooda oo ama xumaada ama dhihi karno ama waqtiga uu ka hiiliyay wax walbana waa qoraal rabbi qof walbana waxa looga baahan yahay inuu aamino qadarta sababtoo ay ka mid tahay iimaanka wax kastoo kugu dhaco waa inaad tiraahdo alxamdulillah إله سبحانه وتعالى وحده لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مركا وحكستو نقول عنوا قدرت ربي وأنا نحن الحمد لله رب العالمين ومرينا كل آذن وحوائد بتوي مرايان وأنا كشكرنا مركا عاو مروير وحنونة وقبر ولاشين صوماليات نوغشي كيسي والله آدي أن أنقي روضي إن أنشأ لستي إن براب الشدة اللي وذاقو إن قبضاس أيضا إن تينا قبضاس ولاشين أو إحنا قصعد ستي دعو إن دعاء سوء إن إلهي خلبي جيد ودجيو ونقبوجيو وحكم مقن إلهي أسوء عليو أيو لاشين نقعد ستي إن قبضاس ولي وحي قعد ستي إن حتى مقعد سوء قدين كرو oo in badan xanuunkeedaas ay ka warqabaan bulsho fara badan la socdaan dareenkeeda xanuun dhibaatada ku soo dhacday masiibada la kulantay dad badan ay wada og yihiin ay tiri laakiin waxaan jeclahay tiri xitaa intaan ogeyn in la wadaagtay sababtoo ah walaalay muslimiinta waxaan ka faa'iidayaa duco iyo wanaag ayaan ka faa'iidayaa ayay tiri ma jecli laakiin aniga hadda magaceeda inaan sheego gabadhaas walaasheen ah waxay tiri قصة حنون بدن أيا إسوا مرتي قصة داس نحكي كبلا بنساس سيدتن قبل داس نحكي كنا لاد دلك مقدشة كنا دلتي كنا بربارتي كقرتي ولا شيء وحيد ترى مركان شري 17 years وحن كورسدي ويل سومالي ودرس كينا أها ونسكي هلني دوقيقة أيو أها وأسجعلاني وحن كده حكلو ما أيجا إسجعلان يعني قبل داس ولا شيء horta dhibka haysto ilaahay ha ka saaro aamin ya rabbi waxaan ku weydiinaa waxay tahay yani gabadhaas wiilka isguursanayaan ma ayaga isjeclaaday mise waalidkii baa isku daray maya ayaga ayaa isjeclaaday isguursaday wiilku wuxuu ahaa wiil yar oo asagana 18 jiro kolley hadda 18 markii meelahan la yiraahdo waa nin maskaxdiisa maasha Allah laakiin 18 ayuu jiray oo guursaday wiilku waa u yaraa waalidiintii la dhaxgeeyay maadaama waalidiintii la dhaxgeeyay waxa dhacday in waalidiintii gabadhii ay xoogaa dhaqan ay isfahmi waayaan calashaan dabeecadii gabadhiina haddana ninkii iyo waxa Firdaws ninkii iyo waxa isfahmi waayay gabadhii iyo family dhammaan waxa noqday gabadhii in macnaha ay reerkii wada xumeeyaan gabadhii waxay tiri koow waxaan qaaday waan ku xanuunsaday waxaan ku noqday tacbaan walaciba ila tagay dhakhtar ayaan galay waxaan arkay ninkii oo laba habeen iga daba iimaanaynin oo filimbooyin igu socdaan waxaan arkay sadohdeedii oo ii iimaanaynin oo gabdhii dariska isoo booqanay igu salaama dhahayso marka waxaan ku jiray 3 week kadibna waxay tiri maalinta dambe uu imaaday lacagta ayaa sodogay ayaa lacagta iga shubay wuxuuna igu yiri intaan ka badan in gurigaaga kaale ku qaado anigana waqti xaadirkaas ma awoodin inaan tiri inaan isbitaalka ka baxo oo gurigii aan ma aragta tago marka walaalahayga qaaliga waxaa dhacday gabadhii waxay tiri odagii uu iga soo saaray wuxuu yiri hadii aad ku sii jirtid anu ma awoodo inaan lacag kala bixiyo anigana waxaan ka doorbiday bay tiri inaan isbitaalkaas aan ku sii jiro
muslima waaye صح been maaha waan kusii jiray bay tiri familigayga saasay tahay iima caloolfiyoobeen waayo ninkaana aniga soo jeclaadaan soo raacay soo guursaday gabar sidii la yaqaanay iyo sharaftii iyo ixtiraamkii iyo adduunkii maana soo marin bay tiri waa layga xumaa markii dambena dee fartaada xumaatay filiqaaga ma hartee reerahayga ayaa isbitaalka inaan ku daayacana loo sheegay way ii imaadeen qarashaadkii wixii ay iga soo bixiyeen bay tiri dan waan roonaaday gurigeygaan imaaday go-aan ayaan qaatay tiri ninkii waan iska furay bay tiri ayadii iyo ninkii waa kala tageen wax su-aashaan ku weydiinaa waxay tahay gabadhaas ninka markuu guursanayay ma meel gooniyuu dejiyey mise hooyadiisuu la dejiyey maya gabadhisa ii sheegtay waxaa hooyadiisa lala dejiyey sababtoo dadka hadday bannaan degi lahayn laysmaba arki lahayn saan aaminsanahay gabadhii markaa adiga reerkoodii u tabaabashaystay waxay go-aansatay inay isaga tagto oo dee waagaas waxaa loo tahriib jiray Sacuudi Arabia waa ay baxday boosaas iyo dhankaasay martay waxay tagtay Sacuudi Arabia markay tagtay Firdowsoy waxay heshay haddana nin Yemani ah ninkii Yemani markay heshay waxay u dhashay adigu way guursadeen isbarteen barasho kadib way guursatay Sacuudiga oo dhan uu ka baajiyay Yemen oo dejiyay nolol adduunyo lacag wax kasta oo lahaa everything markay guursatay waxay tiri waxaan u dhalay tiri hal gabadhaydoo 5 bilood jirtay tiri ayaan haddana ninkii isdagaalnay waxaan arkay tiri gabadhii inuu aad u jecel yahay oo maalinna ina ka maarmin mar walbana wuxuu dhihi jiray tiri haddii aan kala tagno xitaa gabadhayda dalka Soomaaliya miga geenaysid markaan arkay tiri xaaladda inay xun tahay ayaan waxay tiri go'aansaday inaan intay xaaladda kow tahay oo layga qaadan gabadhaydii inaan ka soo kaxaysto oo aan u geysto hooyaday waa ay soo baxday gabadhii waxay u keensatay waalidiinteedii markay u keensatay waxaa dhacday Firdowsoy waalidiinteedii markay u keensatay gabadhii waxay tiri hala ii haayo hooyoy canugtaan anigana waxaan ahay waan soo shaqaysanayaa bas ninkii adiga lacmuun gabadhii markuu waayay aad buu u raadiyey waraysi badan raadin badan wax walbo marka dambeed wuxuu soo helay gabadhii familigoodii iyo meeshay degan yihiin kule Soomaaliya ma joogto is yaqaaneen ayuu dabagalay lambarkii loo soo helay gabadhii mar labaad waa ay tahribtay waxay aad Sacuudi Arabia gabadheedii markay weynaatay 5 jir gaartay dugsi la geeyay dugsigii ayadoo dhiganayso ayaa waxaa dhacday inuu aabaheed oo u yimaado oo na reerkii lacag siiyo horta wuu soo xariirin jiray mar walba markuu soo xariirina de gabadhoodii u sheegi jireen waxay dhihi jireen in habla aabaheed ayaana soo wacay uuna soo xariiriyaa biilo u soo diraa adi cabaar uu seexseexanayay muddo 1 sano uu seexseexanayay si gabadhooda uga wato waa uu ka watay marka alcamum gabadhii waa uu ka watay maalin maalmaha kamid ayuu gabadhii ka watay uu yimid wuxuu yiri meelahana soo wareejinaya marka waa uu ka watay wuxuuna u watay dalka Yemen meeshuu ka imaaday gabadha marka hooyadeed aad ayay u jecleedo oo waxa la yiraahdaa jiro jimcataani ama jimcataani waxa la dhahaa jiro jimcadii kasta waxay tiri marka shaqada ka soo baxo macnaha waa wici jiray gabadheedii iyo hooyadii waa wici jiray waa wareysan jiray inay dugsiga jirto iyo waxyaabahaas oo dhan quraanka meelay mareys waxaas waa la socon jiray markii gabadhii laga watay de ayakina waalidiinta waxay ka xishoodeen gabadhii inay dhahaan gabadhii ninkii ayaa naga wato naga xaday haddii loo sheego gabadhii inay waalatay ka baqeen marka way ka qariyeen markaan soo wacto maxay dhihi jireen inay dhahday dugsiga jirtaa xagga jirtaa kana jirtaa marka maalinta dambe marka gabadhiina waxay tiraani mustaqbalkayga Sacuudi haddana horey ayaan u sii watay nin kale carab ayaan guursaday carabkii markaan guursaday tiri waxaan u dhalay tiri gabar haddana waxaa u dhalay tiri gabar kaleeto gabadhii kale waxay tiri markaan naaska nuujinayay ayaa ninkii isku dhacnay haddana waxay tiri ciqaamadii igala noqday oo siiyay ciqaamadii aan qaato igala noqday sharcigii macnaha wadanka aan kula joogay malaha ciqaamo waa oo igala noqday dhahday markuu iga qarsaday tiri waxaan sameeyay garan waayay tiri kadib waxaan arkay tiri booliis waxaan arkay tiri macnaha familigoodii igu hareereysan gaariyo ilmihii ku ritay inta u socotaa markaan wuxuu yiri dhahay magaaladan haddaad ilmaha soo dabadabaysatid magaaladan dhinac ka gal haddii kaleeto ilmaha soo sheegatidna adiga dhan waan ku tarxiilayaa wadankaagii aan ku celinayaa sharcina ma haysatid markaas ayriye dhahday
maxaa ka wadaa ilmahayga iidaa maya meel uma socdi intaan joogaa ilmahaygaan haysanaa mar dambe kulama dagaalaa qalad ma galaa ilmahayga darteeda u dhahay tiri kadib ninkii waa ii jir xumeeyey ilmihii iga qaatay dhahday wuxuu u geystay waalidiintiisii xitaa tii yareed inaan naaska siiyo waa la ii diiday tiri kadib waxay tiri marka anigiioo dalanbaabaayo oo meelaha warwareegeysanayo oo qof kastoo Soomaali de ninkan carabka wadanka asagaa u dhashtay ayaa ximaar loo leeyahay haddaan telefoonka ugu daminayaa meelaan ka raadiya male ilmahaygana arka waa la ii diiday hooyadii iyo walaalihii iyo wax kasto meela u raadi guri carab wuxuu yiri tiri ridada kasoo istaagtay maalinta kale waa kasoo tagay tiri waxaa soo aaday tiri gabdho Soomaaliya la degay tiri waxaa dhacday tiri markii dambe in booliis guriga wax usoo tilmaamo aqaana shurdo ayaa guriga soo hareereeyay tiri soo waxay tiri marka waa maadaama uu kala noqday marka hore sharcigii wadanka ay ku joogtay uu kala noqday qaat marka waxay dhahday waxay tiri marka waa la igu soo daray tiri hal mar booliisna imaadeen tiri shurdo waxa la dhaho calsha askarta carabta malaha shurdo la yiraahdaa waa noo imaadeen tiri guriga naga xaabiyeen dhahday anako badan oo Soomaali ah kullee wada tilmaan ku socday waxay tiri soo xabsigiyan la geeyay 3 bari kadib xabsigiyan ku jirnay tiri qolo fara badan Nigeria Afrikaan wax walba leh waa diyaaradda marka dhammaan saddexaad aan lagu soo daray dhaadan Muqdisho ka soo degay tiri gurigeyga haddaan imid haddana gabadhi ma joogto waa soo dhigtay gabadha ka maqan waa gabadhii ninka Yamani ee u dhashay gabadhan 2 canug Sacuudi ku soo dhashay labadii canug ninka carabka ka qaatay gabadheedii hore Yamanta ay ka keensatay hooyadeed u haysayna ninkii Yamaniga ah qaatay intaysan ayadoo ogeen gabadhii waxaa dhacday marka gurigii mar alla markay saan u soo istaagtay ayadoo ooynayso oo balanbalayso oo maxaan ku iraahdaay de hooyo ilmaheeda ka maqan dareenkeeda waa dareemi karnaa marka gurigii markay saa u soo istaagay tiri waxaa waayay tiri gabadheedii dugsigiyaan ku orday male waxaan fadhiyay dugsiga jirtaa la yiri xagaan ku orday male kadibna waxa la yiri tiri isdaji fariiso ilaahay baa ilmahan ku shalay ku siiyay maantana hadii ay dhintaan waad ka sabri lahayd anagaba ninkii aa naga qaato naqayaanay marka gabadheedii isdaji meeshii amir ugu dambeysay tiri gabadheedii niyada ku dhisanayna haddana inayna Muqdisho iga soo horeynin meeshii waxay tiri marka aniga qalbi xanuun igu dhacay waan waashtay tiri xoogaa shoogan qaaday quraana la saari jiray tiri marka heer waxaan gaaray tiri macnihii wadankii xitaa Muqdisho aan joogi waayo waan ka tagay tiri adiga Soomaaliya dhexdeeda meel beledweyne la dhaxan aaday dhahday cabaara soo joogay waan joogi waayay waxay tiri aniga dhan ma cuno ma cabo qafiifo waa igu dhacay meel u socdo ma ogi salaada tuka markaa maaga hal ragc iyo 5 ragc waxaan tukaday ma aqaani maraa waxaa la leeyahay tiri adiga 8 ragc tukanaysa maxay tahay wax ma qaleynaysay marka waxay tiri hami dhan malihi qof maskaxdeeda fadhinin iyo maxaa la dhahay xiskeeda waa taqaaniin qof wax dhalo un baa dareemi karaa si fiican marka hadda hooyadaas Soomaaliyeed wallahi marka hooyadaas Soomaaliyeed waxa waaye mustaqbalkeedii horena waxa waa nasiib darro hore Soomaali waxay tiraahdaa guurkaaga hore hadii uu hagaagi waayo kaaga dambo ma hagaago wallahi waxa uu Soomaali tiri waay laakiin anigu waan arkay qofka mustaqbalkiisa dambo hagaagana waan aragnay mustaqbalka loo ka sii dambeeyo oo sii hagaagina waan aragnay laakiin laazim Soomaali waxay sheegto waxan baa ka jiro kulli hooyo walbana gurigeeda ee dhabar adeegay ku joogta ayada dareemi karto marka hooyada Soomaaliyeed waxay u soo dhashay 3 canug ay waxay u soo dhashay ajnabi kulli ana waxaan dhihi lahaa hadda carabta waxaan dhihi lahaa carabna wax ma laga sheegay carab kaliya ma aha carabta waxaan dhihi lahaa horta gabadhan Soomaaliyeed horta walaasheena dhibka haysto Ilaahay ha ka dulqaado talabaad awlaad la dhalay dheel ma ahan hooyana dhibkeeda waa taqaanin gabadhan horta marka hore waxaa guursaday wiil Soomaaliyeed sida noo sheegtay waalasheen ubax haday u raanaan lahaayeen Muqdisho dham ka bixi lahayn marka gabadhii ninkii marka family ha noqoto amani waxaa jiro horta mar family ku fiican yahay ninka ku xun yahay laakiin hadaa dhahdid ninkeyga kaliya ha ii fiicnaado familkiisa ha xumaado muu maleynayo horta reerkaas inuu dhisnaanayo ninkii fiican hadduu famil fiican haysto reerkaas weligiisa ma dumayo horta midda koowaad gabadhaas waayo asaga waa shaqsi hadduu familka fiicnaado
asigana ugu wanaagsanaana waayo family wanaagsana ka dambeeyo gabadhaas dhib badan ee martay waxaa la dhahay meesha aa ku dhibtooto waa laga haajiraa way haajirtay waxay tagtay dalkan iyo Sacuudi Soomaaliya horta mayna jirin xilligaas gabadhaas qisada nooga sheekaysay xilligaas mayna jirin tahriibkan loo maraayo maxaa la dhahaa Liibiya noqoto Masar noqoto hadda Turkiya oo kale waa laga baxaa saxaro culus ay ahaan jirtay mayna aadi jirin iyo waxay ahaan jirtay meel laga boqay ahaan jirtay waxaan Soomaali hadaan nahay waxaan u tahriibi jirnay dalkan Sacuudi aan tahriib jirnay Soomaali hadaan nahay gabadhii meesha ku dhibtooto way ka haajirtay waxay aaday dalkan Sacuudi iyo dhulkaas Yemen ay sii aaday gabadhii waxay halkaas ku guursatay nin Yemeni ah soo sheegtay walaasheen wax ninkii hadana gabar markay u dhashay way saafici waayeen way kala tageen waxay u soo noqotay dalkii hooyo ee markii hore ka tagtay ayadii iyo gabadhii ninku u dhashay maxaa la dhahaa hooyadeed waxay u soo qaaday si cunugta ay u hayso ayadana hooyadeed iyo cunugtaas si ay wax u tarto alcamuum way noqotay gabadhii hadana wadankii ku noqotay maadaama ay hooyadeed u kaysatay cunugteedii wadankii markay ku noqotay hadana waxay guursatay si ay noo sheegtay nin carab ay guursatay marka hore nin Yemen ay guursatay hadana nin carab ay guursatay oo Sacuudi soo jeedo waxay u dhashay laba cunug labada cunug markay u dhashay way kala tageen isla wadanka ayadoo joogto ayuu ilmihii ka qaatay meeshay dhib badan ku martay ee ku rafaaday oo xataa ku soo diray yani wadankii qofka bini'aadanka wadan walbo joogto waxa lagu joogaa sharci maadaama uu sharciga kala noqday gabadhii oo ilmihii hadana uu ka qaatay ee murugo badan dareentay istreestay alcamuum hadana waxa uu imaaday ayadoo guri gabdho la degan oo iskaga soo tagtayba oo qoosatay gabdha ayadoo la deganaa gabdhaha ayagoo la deganaa waxa uu imaadeen yani wadankaas waxaa jirto shurda waxa la dhahaa kusoo gargaraacayso guryaha oo ku weydiinayso sharciga ama ciqaamada sida u taqaaniin gabadhii waa la soo tarxiilay 3 biriya xirneed waa la soo tarxiilay waxa lagu soo tarxiilay wadankii ay ka tagtay iyo hooyadeed waxaa idinka hilmaamay gabadheedii waxaa cishtay ninkii marka hore ee u dhashay Yemeniga ahaa yani suu u soo wareysanay gabadhiisa meesha ku nooshahay wuu imaaday gabadhiisii suu macnaha adi waarid waa taqaanaa suu meelaha uu fadhiisanayay gabadhiisii uu ka haystay wuxuu u noqday wadankii gabadhii mar walba ay soo wacday reerku waxay ugu sheekeyn jireen inay gabadhi weli u joogto ee u aado yani madraso yani xifd quraan u noqoto alcamuum gabadhii markay wadankii ku soo noqotay waxay ogaatay inay gabadheediiba gacan ku haynin oo hooyadeed la joogin gabadhii way qaraacantay waa dareemi kartiin hooyo wax dhashay way dareemi kartaa mara la xumeeyey mar labaadaa la xumeeyey mar saddexaadaa la xumeeyey intaas awlaaday dhalaysa awlaadeedana qof walba wuu ka qaadanaya yani qalbiga qofka bini'aadanka mar hadduu macnaha waxaan ka wadaa oo dhibtoodo mar hadduu kufo mar labaad kufo mar saddexaad kufo xataa waxaa jirta still qofka aad adeegiisa ku xiran tahay inaad mar walba aad adiga ka kabsan kartid aad kuftid oo dhibaato kugu dhacdo inaad kasii kabsan kartid haddana kasii kabsan kartid haddana kasii kabsan kartid marna adan daciifnimo muujinin laakiin xanuunka meesha taalaa waxay tahaybo aniga ninku xumeeyo iyo nin i xumeeyo iyo dad i xumeeyo iyo horta aniga ahaan waxaas maba kala jecli waa waxaan aaminsanahay shaqsi adag oo ka baxsan karo oo maanta dhib kasta hadday igu dhacdo inaan ka gudbi karo ama sida uga gudbi lahaa ama aan uga talaabsan lahaa mar walba ku fikiraa laakiin waxaa la yaab leh awlaadaadii oo geeri aada ku ogeen oo aada soo duuganin nolol aada ka ogeen meelay ku noolyihiin aadan ogeen ilmahaagii ka noqo kaanama qofa maanta waxba dhalin aada gacanta ku haynin walaahi taa xanuunay leedahay waa dareemi karnaa xanuunkeeda leeda taas wax la qarin karo ama la dafiri karo ma ahan waayo
haddaa maanta qofkaa dhinto walaa xanuunkeeda wuxuu ku hayn karaa in muddo ah waa ka kabsan kartaa waayo qofkaas meelaa ku og tahay allihii shalay ku siistay nacam ayaa maantana waayo hadduu saqiiro saqiirkaaga aaqaro inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun waa masiibo aad ka gudbi kartid laakiin ma dhimanin waayo waxaa dhici karta xitaa hadda waxay itiriya kaaga daran calol xumo canug cad oo carab tilmaanta carabta le mar alla markaa arkay dhadindhaha lasii raacaya tir saasa usii fiiriya hindida ilmahooda saasa usii fiiriya carab miya saasa u fiiriya xitaa canugeygii aan u malaynaya ayay dhahday marka hadda islaanta ayada ahayd gabadha iyada walaasheen way xanuunsan tahay waxaa ku dhacay gaas waxaa ku dhacay cholesterool waxaa ku dhacay xanuuno fara badan stresska dartiisi hadda waxay u socotaa dalka hindiya ayay u socotaa waxay rabtaa xaalad caafimaad darteeda marka walaalaheena qaaliga ah gabadha ayadaan usoo duceyno waa gabar muslimad ah waa gabar soomaaliyeed waa gabar xanuunsan aan usoo duceyno aan ugu soo duceyno kuwa owlaad saalax ah nin wanaagsan oo maasha allah ah oo qalbigeeda dejin karo oo nolosheeda hanan karo oo wixii xumaayo soo maro ajaanibta qurunka ahaa oo soo maray inuu midka qalbigiisa ee qalbigooda ka saari lahaa dhibaatada u geystay inuu ilaahay horta u sahlo midda kale owlaadeedaas ka maqan inuu ilaahay u soo geliyo owlaad saalixiina oo bedelkeeda oo kuweeda hore hilmaansiiyo ilaahay subxaana watacaala badankeeda hooga soo jaro waxaan kaloo ilaahay subxaana watacaala u baryeynaa owlaadeedii kama sabri karto inuu ilaahay subxaana watacaala u soo celiyo oo mar labaad gacanteeda ugu soo celiyo hooyo iyo ubadkooda inay ilaahay subxaana watacaala isku keeno ilaahay wax kasta wuu awoodaa in allah calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax kasta waa awoodaa walaasheena iyadana waxaan leenahay walaashee markasto duceyso sunnada ku duceyso salaada waajib ku duceyso ducooyinka akhriso allah wuxuu moogyaha ma lahan wax kasta allah kii og waaye wax kastana allah kii awoodo waaye baryadaadana ha ka daalin laana maxaa yeelay baryadaada waxaa layidhi waa mid kuu soo degdegto iyo mid kaa soo daahdo iyo mid maalinta qiyaamo kaaga horeysa waay marka walaasheen waxaan dhihi lahaa ayadana ducada ha ka daalin iyo baryada ilaah insha allah annagana waan kuu soo duceyneynaa qisadeennan waxay tusaale noo tahay in ajaanibta ayna fiicneen guurkooda sinaba ay ku fiicneen marnaba ayna ku fiicneen sinjiyan inayna ku fiicneen diini iyo maadi midna ani hadda ma dareemi karo inay ku fiicantahay ajaanib guurkooda la-ana maxaa yeelay nin soomaaliyeed maanta wuxuu doono hadduu ahaado canugaaga hadda gabadhaas haddii ilmaheeda laga qaato sacuudi arabiya meelay ka raadisa ma lahan yeman meelay ka raadisa ma lahan laakiin waxaa dhici karto nin soomaali haddii aa guursato kan u fog muxuu kaa geynaa koonfurta dhexdeeda hadduu beledweyne kaa dejiyo hadduu baadiyaha kaa dejiyo hadduu oo maxaa la dhahaa isheeg kaa dejiyo hadduu wajeer kaa dejiyo hadduu mandheero kaa dejiyo hadduu beled xaawo kaa dejiyo hadduu bardaale kaa dejiyo hadduu hargeysa kaa dejiyo hadduu gaalkacyo kaa dejiyo hadduu boosaaso kaa dejiyo sabab soomaaliya dhexdeeda waa tartiib baabuurkaaga u raaci kartaa baskaaga u raaci kartaa qabiilkiisaa raadi kartaa hebelkiisaa raadi kartaa gurigu shala degana kaaga dhalaa kase marka kii kaa qaato alcamum meelaa u raadisaa helaysaa marka ilaahay gabdhahana guurka ha u wanaajiyo ilaahay guurkooda hana hagaajiyo mustaqbal wanaagsan ilaahay ha siiyo insha allah soomaalideenana aan iskaga iimaansano waayo iyaga wax ka wanaagsan ma lahan gabadha maanta la furo ama maxaa la dhahay la xumeeyo yaysan niyad jabin yaysahayn niyad jabin sababtoo ah niyad jabka farada badan waxa waaye adiga ayay kusii daciifinaysaa ma wanaagsano inaad daciiftid sababtoo adiga ayay maaragtaay kusii daciifinaysaa niyad jabka laakiin moora aad adkaatid oo xaalad walbayna ka gudbi kartaa iska dhaadhiciso waxay kaa dhigaysaa gabar geesiyad ah adag wax kasta dardari karto wax kasta maxaa la dhahaa xaalad walbo la timaado ka gudbi karta ayaa noqonaysaa mid kale ayaa idiin sheegaya
maanta hadduu qofku xumeeyo, qofkaas markuu ku xumeeyo xumaantiisa haddii aad sii fiiriso waxaa faraha la geli kartaa xumaan kasii daranaa lugaha ku raadsan kartaa dalaq. sababtoo ah waxaa jirto gabdho oo waxay la xumeeyo oo ama ha la qabo ama yaa la qabin, yani qofka markaas ay ku kalsoon tahay xataa qofka qabo ha noqoto. waxaa jirto gabar inta la xumeeyo isdhahdo qofkan maadaama uu ku xumeeyey ayadoo wixii hore ayna kasoo qabsanin inay wax kale ku degdegto. tii kugu dhacda maahane waxaad kasii qaadi kartaa mid kasii xun. waxaa la rabaa qofka markuu wax ku dhaco dhiirigelin inay u noqoto. anaa kuu sheegaa for example hadda waxaa dhacayso gabar baa nin la sheekaysanayso wuu xumeynayaa. markuu xumeeyo ayadoo isdhehayso ku xumee hebel ama isdhehayso macnaha nafteeda dhehayso hebel xanuunkii dhibaatadii uu kuu geystay isku ilowsii qofkan kaleeto. waxaa waaye xaaladahaas markaad saasoo kale aad samaysid waxaa la kulmi kartaa xaalad aan cimrigaaga adaad arkin ayaa la kulmi kartaa. markaa wax samaynaysid waa inaa horta wixii hore ka kabsatid, iska ilowdid xaaladii adkeeda kusoo martay, iska ilowdid dhibaatadii, iska ilowdid qof nadiifa ka noqotid, qalbigaaga kuu dego, maxaan ku dhaha jismigaaga isbedelo, wixii oo dhan xumaantii oo dhan markaa aragta xataa ama aan soo xasuusato xitaa xasuus xataa aan kugu soo dhacaynin, careless aad ka noqotay, xaaladda xumed aad kasoo gudubtid, kadib ayaa step tilaab la qaadaa oo la dhahaa tilaabtan hadda haddii aan sameeyo waa good because taas waxaa la arrinka firsashaa oo gashaa la dhahaa. marka markasta waxaan aniga idinkugu dhiirigelinayaa walaashiin ubax, waxaan markasta aniga idinku dhiirigelinayaa in adinkoo xaalad adag kasoo baxday aadnan haddana ku degdegtaan haddana xaalad kale adinkoo oo markaas maskaxdiina iyo jawigiina midna aan deganeyn. waayo waxaa la kulmi kartaa saa idin sheegay xaalado kale la gudbi kartiin. marka barnaamijkeena ama mawduucan wuxuu ku saabsanaa khasaarada ay leedahay ajaanibta. waayo ubadkaaga dhan baad ku weyn kartaa. ubadkaaga dhan adduunka horta maxaa loo guursadaa? waxaa loo guursadaa maanta adduunka inaa wax dhasho, awlaad inaa heshid, ku anfaco, ayaga is anfaco, dadkooda anfaco, kuwa allah adeeco inaa dhashid ayaa loo dhalaa, ayaa loo guursadaa si ubadkaasa u heshid. mush maantayto berina wax ku taraan, berina adig ku taraan, ayaga is taraan, dadkooda taraan, dalkooda taraan, allah kuwa adeeco inaa dhashid ayaa maanta loo guursadaa. haddaa maantayto sidii gabadhan walaashan Soomaaliyeed ku dhacday oo kale, haddii maantayto aad ajaanib u guursatid dee awlaadii aad raadinaysay oo maantayta aad dhahaysay aad ku intifaacdid ayaa haddana farahaaga ka baxaayo. walaashii haddana firdows abaay ajnabi haddana naxariis ma lahan. waayo sembri ajnabi ayaa tahay, sembri ajnabi lee tahay, naxariis ma lahan. ma fahantid? marka wallaahi abaayo waxaan dhihi lahaa aniga ajaanibta ha laga digtoonaado. dalkeena waxaa jooga dad wanaagsan, dibadaha waxaa jooga dad wanaagsan, meel walba hadda wadan walba cagaha saa haddaa u dhigto Soomaaliyeed kama weynaysid abaayo. ninka Soomaaliyeedow haddaa cagaha meel walba aad dhigtid waxaa joogo naag Soomaali ah. marka wallaahi alxamdulillah mawduucuna caawa saas ku saabsanaa. waxaa kaloo jiro gabdhaha kaliya ma ahan, waxaa halkan waxa uu sheegayaa wiilasha Soomaaliyeed inay gabdhaha walaalahooda dhibaatada ay marayaan ayaga sabab u yihiin. waayo adiga haddaa xumeynid, adiga haddaa sharaftid, adiga haddaa sida kasoo qaadid gabar walaasha adiga kula dhalatay haddaa kasoo qaadid buu u maleynayo inay nin kala damcayso ama nin kale hamigeeda galaayo. ma fahantay? waxaan ku dhihi lahaa gabadha macnaha adiga aad qalbigaaga siinaysid marka hore walaalow ha dayacin. taasa ku sheega habadin ciil iyo inay nin ajaanabi haddana guursato ee isdhaahdo dhibkan wiilkan walaalkaa Soomaaliyeed uu ku baday bal sidaa ugu bixi lahayd ninkan u gal. habadintaas adiga sharaf dareen ku tahay in lagu dhaho maanta gabar Soomaaliyeed nin yani cadaan ama nin ajaaniba ilmo ka dhalay ee raadinaysaa oo hadda ka hor ka qaatay, adiga sharaf dareen ku tahay. hadhihin maxay gabdhaheena u guursadaan nimanka ajaanibka
adiga haddaa naxariis tustid muu maleynayo inay macnaha nin ajaanibi ay raadsanayso. adiga qalbi jilicsan lahaaw, naxariis lahaaw. gabadha way kula dhalatay, wayna ku dhashay, waana dhali doontaa. naxariis gabdhaha Soomaaliyeed qalbigooda. warantaada walaasheed Firdowso waxaa ka hadashay mowduuc wanaagsan waaye. waxaan aaminsanahay in badan oo naga horeysana inay barnaamijyadan iyo waxyaabo kale ay ka hadleen. caqilin leh, culimo leh, abwaan leh, fanaan leh, caaqil leh. kule barnaamijkan in badan baraha YouTube-ka waan ka daawan jirnay, ka dhageysan jirnay. anigana waxaan la hadlayaa gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan idin leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed oo haddii aad xiriir la sameysaan wiil Soomaaliyeed, adinkana xiriirkiina ka dhiga mid toosan, ku saleysan raadkiisa run, ku dhisan maxaan ku iraahdaa xiriir wanaagsan. la samee walaalkaaga. haddii mustaqbalkaaga uu noqdo oo zaygaaga uu noqdana noqo marwo wanaagsan oo ninkeeda adeecdo oo ka dambeyso, hooyo wanaagsan, gaari ah, nadaafado saaxiib ah, ninkeeda u roon, inta diinteena islaamka intii ay sheegtay ku saleysan. haddii aad noqotid kolley samirkana muhiim waaye, samirkana badiya. waa shayga kaliya oo lagu nool yahay. samirka badiya. hadduu samir oolin meeshas waxba ma yaalo. midda kale waxaan idin sheegayaa qofka samirka badan mar walba waa madluum. qofka madluumka ana ducadiisa waa mustajaabo. wallaahi alcadiim hadda been idinma sheegaayo, waa wax la ogaaday oo la tijaabiyey. qofka madluumka ah markasta ducadiisana waa mustajaabo. waayo haddaad samir badan tahay, haddaad dulqaad badan tahay, haddii aad tahay gabar maxaan ku irahdaa markasta samirto, haddii aad tahay, waayo qofka sabro badana waa la dulmiyaa, waa ogahay. ninka maanta markaa u sabirtid, beri u sabirtid, beri dambe u sabirtid, markasta wuxuu iska dhacdhacina macnaha wadadii aa hadda ugu sabrayso mar walba ku noqnoqonaya. wadada hadda ugu sabrayso ku noqnoqonaya. haka daali, laakiin iska sii sabir si mustaqbalkaaga in noloshaada u hagaagto. hooyooyin badan waxaa jira maanta 20 canug waaweyn maasha Allah, sidii ayeeyooyinkeenii hore dulqaaday ku dhaleen, samiray ku dhaleen, daacadnimadooday ku dhaleen. run beentan farada badan oo telefoonada soo baxa ma jirin. way isku gaboobeen, ayeeyo aabbo way isku gaboobeen. marka si sidaas oo kaleeto loo helo waxaa waaye in samirka la badiyo. mar haddaa samirka badinana waxaan weyneyno insha allahu billahi alkariim ma jirto. marka walaalahayga qaaliga ah waa idinku dheeraanay, naga raali noqda. caawa mowduucan wuxuu ku saabsanaa ajaanibta iyaan la guursanin, sababtoo ah ubadkaagaad ku weyn kartaa. mowduucan caawa intaas ayuu ku saabsan yahay. maantana waxaan hortiina fadhiso saaxiibadeyda qaaliga ah inaa iga maqasheen in badan waa laga yaabaa. waa Firdowso Kaash. waxaa igu maqasheen Firdowso Balbaalo ama ay igu aragteen. haddana waa Firdowso Kaash. asxaabteyda kale insha Allah idin bari doonaa. dar ilaahay ayaan u jeclahay, diintaasaan ku walaalownay. aad baan u jeclahay, aad bay ii jeceshahay. saaxiibadeyda qaaliga ah waaye, ceesh ayaan wada cunaa. marka aad iyo aad aan idin salaamaya. waxaan idin leeyahay asxaabteyda ku xiran channelkayga walaashiin ubax ayaan badan oo idin leh qisadan iyo qisooyin kale ka wanaagsan ama ka badan insha Allah inaan idinla soo wadaagi doono. maana hilmaamina cilaankiina meesha ayuu ku jiraa. gabdhahayga barashada cilaanka waa ii baakima yihiin. insha Allah billahi alkariim waa idin soo socdaa. waxaan idin leeyahay in nolosha ha idin wacnaato. waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.